makhluuqaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalayaal u abuuray ee tirada badan ilaahay subxaanahu wa tacaala ma simin. hal darajo agtiisa kama joogaan, waa kala fadli badan yihiin waana kala sarreeyaan. tusaale haddaynu bixinno, dhulka ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u abuuray, markaasaa wuxuu ka dhigay maka tan ugu fadliga badan. basharka iyo bini'aadanka ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray, markaasaa wuxuu ka dhex doortay ambiyada iyo rusushii baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kala sii baxay 5 la yidhaaho ululcasmi. 5tii buu haddana sii kala fadilay. nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam baa ugu fadli badan. malaa'igta ayuu sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray, malaku jibriil buu ka dhigay kan ugu fadliga badan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu abuuray zamanka iyo wakhtiga, markaasaa wuxuu ka dhigay 12 bilood. markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala 4 ka mida ayuu fadli siiyey iyo xurmo dheeraada, sida ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu ku tilmaamay: ina ciddata الshuhuuri cinda allahi 12 shahran fii kitaabi illaah yowma khalaqa aلsamaawaati wاlأrض minha 4 xurum. 4 bilood ee xurmada leh waa bisha shawaal iyo dilqacda iyo dilxija iyo bisha rajab weeyaan. 4 biloodna ilaahay subxaanahu wa tacaala ma simin. waxaa ugu fadli badan bisha dilxija, gaar ahaan 10ka cisho ee bisha ugu horeeya ayaa waxa weeyaan ugu sii fadli badan. taasina waxay ku dhisan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkiisa ah: warabbuka yakhluqu maa yashaa'u wayakhtaar maa kaana lahum alkhiyara subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun. ilaahay subxaanahu wa tacaala baa kala dooransiinta iyo kala fadilidda iyo isdheeraysiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala baa xaq u leh. xikmad iyo ujeeddo aad u weyn ayaana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka leeyahay. 10kan maalmood walaalayaal ee fadliga badan, arrimo aad u badan baa ku tusinaya fadligooda. waxaa ka mida sida xadiidka jaabir uu tilmaamayo oo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu leeyahay: afdalu ayaami اddunyaa ayaamu اlcashr. maalmaha adduunyada waxaa ugu fadli badan maalmaha 10ka ah ee u horeeya bisha dilxija. qodobka labaad ee ku tusinaya walaalayaal maalmahan fadligooda waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaartay. maalmahan habeenadooda ayuu ku dhaartay alle, markaasaa wuxuu leeyahay: waalfajri walayaalin 10. waxaan ku dhaartay waaga iyo habeenno 10. mufasiriintu say u badan yihiin waxay ku fasirayaan habeenada 10ka ah waa habeenada ugu horeeya bisha dilxijo weeyaan. qodobka saddexaad ee ku tusinaya walaalayaal maalmahan fadligooda iyo qiimahooda waa in maalmahan 10ka ay ku jirto maalin loo yaqaano yowmu carafa, maalinka carafo. maalinkaasi waa maalin aad u weyn, fadaa'il badani dhexdiisa ay ku sugan tahay. xalqadda dambe ayaynu insha allahu tacaala si gaara u dul istaagi doonaa. qodobka afraad ee ku tusinaya maalmahan fadligooda iyo qiimahooda waa in maalmahan ay ku jirto maalinka loo yaqaano yowmu naxri, maalinka dhuundhowga oo maalinka 10aad ee ciidka ah. sida xadiidka cabdillaahi ibnu qurطin uu tilmaamayo, nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi: afdalu اlayaami cinda allahi yowmu الnaxri ثuma yowmu اlqarri. maalmaha ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa waxaa ugu fadli badan maalinka loo yaqaano yowmu الnaxr, waa maalinka 10aad ee ciidda weeyaan. maalinkaasaa ugu fadli badan buu nebigu yidhi. waxaa ku xigta yowmu اlqarri, waa maalinka 11 bisha dilxija ay tahay. qodobka 5aad ee ku tusinaya walaalayaal maalmahan iyo qiimahooda, sida xadiidka cabdillaahi ibni cabbaas ku sugan, nebigu wuxuu leeyahay: camal la sameeyo waxaa ugu fadli badan uguna qiimo badan camalka maalmahan 10ka la sameeyo. dabeetana saxaabadii nebigu waxay yidhaaheen: oo rasuulkii allow, xataa jihaadka miyay ka fadli badan yihiin camalka la samaynayo maalmahan? markaasaa nebigu wuxuu idhi: haa, ilaa nin naftiisii iyo maalkiisiiba la baxay oo waxba aan kalala soo laaban mooyaane. culummadu waxay isweydiiyeen, maalmahani maxay sidaa ugu fadli bateen? ibnu xajar ayaa soo aruurinayo wuxuu leeyahay, maalmahan fadliga intaa leeg waxay ku yeesheen waxaa ku kulmaya maalmahan
shantii rukni ee waxa weeyaan diintan islaamku ay ku taagnayd waayo qofkii wuxuu la imanayaa shahaadataynkii oo waxa weeyaan inta laa ilaaha illa allah ayuu waxa weeyaan ku soo celcelinaya salaadii buu qofkii tukanaya soom sunnaa baa loo jideeyey inuu soomo zakadiisii buu ku beegi karaa oo uu bixin karaa sidoo kalena waa maalmihii xajka oo waxa weeyaan maalmo aan ahayn xajku waxa weeyaan ma soconayo ama lama samayn karayo sidaa darteed maadaama arkaantii diinta islaamku ay ku kulantay maalmahan ayaa qiimaha intaa leeg ay ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ay ka yeesheen arrinkaa haddaynu ogaanay walaalayaal iyo maalmahan qiimahooda iyo fadligooda su'aasha muhimka ee la isweydiinayaa waxay tahay maxaynu kaga faa'iidaysanaa waxyaabaha lagaga faa'iidaysanayaa way badan yihiin waxaa ugu muuqasho badan qofku haddii uu awoodayo maalmaha sagaalka ee bisha u horeeya inuu waxa weeyaan soomo sida xaasaskii nebiga sala allahu calayhi wasallam qaar ka mida ay tilmaamayaan waxay leeyihiin kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasallam yasuumu 9 dilxija nebigu sagaalka bisha ee hore waa soomi jiray xataa qofku haddaanu sagaalkaba wada soomaynin intii uu awoodayo waa inuu ka soomo gaar ahaan maalinka carafa oo waxa weeyaan soomkiisa si gaara loo tilmaamay waxaa ka mid a waxyaabaha lagaga faa'iidaysanaya walaalayaal qofku inuu dikriga alle iyo xuskiisa uu badiyo oo waxa weeyaan uu ku dadaalo waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay wayadkuru isma allaah fii ayaamin macluumaat maalmaha macluumaadka ah waa maalmahan tobankaa weeyaan saxaabadii nebigu sala allahu calayhi wasallam waa ku dadaalayeen sida ibnu cumar iyo abu hurayra suuqay u soo baxayeen markaasay takbiiranayeen allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd markaasaa dadkuna takbiirtooda ay waxa weeyaan ka daba takbiiranayeen waa acmaasha la samaynayo kuwa ugu qiimaha badan dikriga alle iyo xuskiisa in la badiyo yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru allaha dikran katiira waaddaakiriina allaha katiiran waaddaakiraat xuska alle inaynu badinno waa muhim weeyaan waxyaabaha loo baahan yahay inaynu ku dadaalno waxaa ka mid a salaadihii faralka ahaa inaynu ku ilaalinno waxa weeyaan jamaca iyo wakhtigooda inaynu ku ilaalinno waxaa loo baahan yahay sunnayaasha in la badsado oo salaadihii sunnayaasha ahaa qofku waxa weeyaan uu ku dadaalo hadday noqdaan kuwii raatibada ahaa ee faralka ka horreeyey ama ka dambeeyey hadday noqoto salaatuleyshi hadday noqoto salaatuduxadii qofku intuu ka awoodaya inuu kala yimaado aad iyo aad bay muhiim u tahay waxaa ka mid a walaalayaal qofku haddii uu awoodayo qur-aanka kariimkaa inuu 10 cisho uu mar dhammeeyo waanay fududahay qofku hadduu maalinkiiba 3 jis u akhriyo 24kiisa saac 10 cisho gudahooda qur-aankii waa ku dhammaynaya waxaa ka mid a walaalayaal waxyaabaha loo baahan yahay inaynu sadaqada ku dadaalno iyo waxbixinta iyo masaakiinta iyo fuqarada inaynu wax siino waxaa ka mid a walaalayaal waxyaabaha loo baahan yahay inaynu ku dadaalno inaynu toobad keenno ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo noqonno dunuubtii uga soo laabanno waxaa ka mid a inaynu dunuubta iyo macaasida iyo munkaraadka maalmahan 10 aynu iska ilaalinno oo ka fogaanno kana dheeraanno